Ku soo dhawow Baghdad Online Academy. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا كسر هذا بغداد أونلاين أكاديمي. حلقة دين أسبوع لها أهيد ما أنت حلقة دين وحنا واحد لدونا برنامج آد مهمة قف والبو آدنا نتابعنا يرنتي أي مهم تاينو قف والبقضو بيستو سيجارهن ونولشي سوقو فيديو ماشي وكجوجو. نينك اللي هذا ستيفن كوفي أيا وحو قري كتاب اللي هذا toddobada dhaqan the seven habits oo bini'aadanka dadka ugu waxtarka leh ay ku dhaqmaan toddoba caado toddoba dhaqan oo ay leeyihiin dadka dunida ugu waxtarka badan ugu tayada badan ayuu soo ururiyay baaritaan dheer uu sameeyay shakhsiyaad fara badan oo la kulmay kadib waxa soo baxday toddobadaasi dhaqan qofkii laga helo inuu ka mid noqonayo dadka dunida ugu saameynta badan aadayna muhiim u tahay inaan isla fiirino qodobka koowaad aan ka bilaabaya toddobada qodobka koowaad wuxuu yiri waxaad noqotaa qof mas'uuliyadiisa qaata waxaad noqotaa qof mas'uuliyadiisa qaata oo firfircoon yani qof walba bini aadana waxa la rabaa inuu marka koowaad asaga iska bilaabo oo uu yiraahdo aniga mas'uuliyadii laga rabay ma qaatay meeshii laga rabay ma ka soo baxay tilaabooyinka inaan qaado ay ahayd ma qaaday waqtigayga sida la rabay ugu faa'iideystay horumarkii iyo aniga aan damaca ka qabay ma gaaray mas'uuliyadeeda ma qaatay inaan gaara ma u qaatay mas'uuliyadeeda inuu marka hore isweydiiyo runtii aad u qodobkaasi muhiim u yahay waayo qof walbo asaga go'aamada uu qaadanaya ayaa noloshiisa dhan ay ka koobantaa marka go'aamada adiga aad qaadatay waa mas'uuliyadaada aniga waxa iga go'an inaan meeshan gaaro waxa iga go'an inaan waxaan sameeyo waxa iga go'an inaan tilaabadan qaado marka adiga go'aanka qaadato mas'uuliyadaas inay ku saaran tahay inaad ogaato geed gaabani geed dheerna aad u fuusho inaad mas'uuliyadaas gaarto waxa doontaba ha ahaato mashruuc baad rabtaa inaad ka guul gaarto mashruucaas inaan ka guul gaaro baa jirto inaad soo istaagtid waxaad rabtaa inaad waxbarasho heer ka gaartid heerkaas waxbarashada inaan gaaro baa jirto geed gaabani geed dheer inaad u fuusho waxba مثلا waxaad rabtaa inaad noqotid hogaamiyahaas inaad noqoto aad rabtid wadiiqooyinka aad ku gaari lahayd oo dhan inaad adiga marto tadxiya dhammaystiran aad bixisid mas'uuliyadaad aad qaadatid adigoon cidna ku eedeynin caqabadaha ku soo wajahayana u babac dhigaya go'aankeeda qaadanaya ogna inaad tilaabo walbood qaadayso ay ku xiran tahay inay caqabad ay ku soo wajahdo caqabadaasna ay tahay wax ugu horeeyo oo ka hor istaagi doono marka qodobka koowaad mas'uuliyadaada qaado cidna eeda dusha ka saarin hebla ilaha iyo hebla ilahayd iyo haday saan ahaan lahayn saan baan yeeli lahaa iyo hadaan aniga ii deyn lahaa meeshaasan ka bixin lahaa iyo waxa soo dhantaad meel iska dhigto mas'uuliyadaada qaado qodobka labaad oo runtii asagana aad ku muhiimka waxa weeyaan wuxuu yiri bilow wax walbood bilaawayso adigoo maskaxda ku haya meesha ugu dambaysa adigoo maanka ku haya meesha ugu dambaysa waxaas aad bilaawayso bilow yani intaad wax bilowdo ha iska bilaawin waa la bilaaway oo kali ah u bilow adigoo ka dheregsan macluumaad dhammaystiran ka haya meeshuu ka bilaawanaya meeshuu ka dhamaanaya targetkaada si fiican u xadiday inaad gaartana qorshaystay kadibna wax walba ku soo wajahaya iyo maalmaha kugu soo socdo ku tiragal wajigaaga iyo indhahaaga ha hayaan oo kali ah meeshaad adigu u socotay ugu dambeynta ahayd yani waad ogtihiin qofka markuu guri dhisayo guriga naqshadiisii baa la soo hordhigaa ama naqshadiisu marka hore diyaariya naqshadaasuu diyaarinayo waxay ka dhigan tahay guriga dhammaystiran qaybihiisa dhammaystiran oo qayb walba leh yani hadduu maalan guri deegaan uu yahay gurigaasi ilmihii meeshay degi lahaayeen asaga meeshuu degi lahaa martidii meesha wax lagu cuni lahaa musqulii wixii dhan way qorshaysan yihiin marka gurigaas la bilaabayaba waxaaba laga dheregsan yahayba gurigaas wuxuu yahay wax walba oo qofka uu bilaawayana waxaa la rabaa inuu asagoo sida ugu dheregsan uu bilaabo macluumaad dhammaystiran ka hayo kadibna targetkiisu uu ahaado gurigaasoo dhisan inuu arko ugu dambeyntii mashruucaasoo dhammaystirmay inuu arko ugu dambeyntii hadafkiisu uu ahaado aqoontaasoo gaaray in ugu dambeyntii go-aankiisu uu ahaado runtii aad uu qodobkaas isagana muhiim u yahay qodobka kale oo muhiimka waxaa weeyaan bilow adigoo horumarinaya waxa mudnaanta leh wax walbood bilaawayso mudnaanta waxa iska leh si mudnaanta qofka bini aadamka noloshiisa waxyaabo badan saameyn ku leh
wax asaga muhiim u ah waxaan muhiim u ahayn basaameynay ku leeyihiin maanta oo dhan inta badanna waxaa bini aadanka mashquuliya waxyaabaha aan muhiimka u ahayn marka waxyaabaha muhiimka ku ah si aad ugu guul gaarto marka ugu horeysaba waxyaabaha muhiimka soo horumarso maanta maxaad samaynaysaa waxyaabaha muhiimka ah mudnaanta si yacni qofka bini aadanka noloshiisa waxaa la yidhi wuxuu ka kooban yahay 4 mid unbuu noqonayaa shay muhiim ah oo muxuu ahay degdeg ah inuu yahay shaygaas iyo inuu yahay shay muhiim ah aanan degdeg ahayn waa labo midda saddexaad shay aan muhiim ahayn haddana degdeg ah shay aan muhiim ahayn midka afaraad oo aanana degdeg ahayn qofka bini aadanka wuxuu inta badan ku mashquulaa labada ugu dambaysa iyo midka ugu horeeya yacni shay muhiim ah oo degdega iyo shay muhiimba aan ahayn oo degdega iyo shay aanan degdegna ahayn muhiimna ahayn intaasay dadka inta badan ku mashquulaan waxaan ugu muhiimsan baa la yidhi qof walba inuu xooga saaran la rabaa qodobka labaad oo ah shayga muhiimka ah aan degdega ahayn yacni mustaqbalka ah waa noloshaada dhan mustaqbalkaada dhan go-aamadaada dhan qorshooyinkaada dhan yacni qorshihii aad samaysatay inaad gaartay aad rabtay qorshihii noloshaada ku saabsanaa qorshihii qoyskaada ku saabsanaa qorshihii ganacsigaada ku saabsanaa qorshihii shaqadaada ku saabsanaa qorshihii aad samaysatay waa mustaqbalkaas inaad kaas xooga saartaa la rabaa ood u jeesatid oo number 1 aad ka dhigtid kuwaan kale markaas kadib haddii aad boos u heshid aad kusoo buuxisid insha allah sidoo kale waxaa la yidhi qodobka afaraad oo muhiimka waxaa weeyaan inaad u fikirto faa'iido wadaag keligaa inaad faa'iido weligaa ha ku fikirin haddaad rabto inaad horumar gaarto cidda kugu hareereysan dadka aad wada shaqaysaan dadkaad wax wadaagtaan in iyagana guulaystaan u ogolow keligaa guusha ha isla jeclaanin shaydaanba anaaniyad lagu yaqaana ana ha dhihin in wax lagula wadaago ogolow in lagula guulaysto ogolow fursad sii dadka kale tala wadaag samee waxaadna heli doontaa insha allahu tacaala guusha adiga aad rabto inaad gaarto haddaad ogolaato niyadaada niyad saami ay tahay inaad dadka kale kula guulaystaan aad diyaar u tahay hadduu ilaahay idmo qodobkaas isagana aad u muhiim u yahay qodobka kale runtii isagana aadka u muhiimka waxaa weeyaan oo shanaad waxaad marka hore isku daydaa inaad dadka kale adi fahanto inta aadan dalbanin in lagu fahmo qodobkan aad buu muhiim u yahay runtii bini aadanka o dhan wuxuu u badan yahay inay dalbadaan in la fahmo inay yidhaahdaan ifahan marka hore saasay u badan yihiin oo qofka inay wax u sharaxaan o qanciyaan ay isku dayaan iskuma dayaan inay iyaga marka hore wax fahmaan laakiin waxaa laga rabaa inaad adiga marka hore isku daydid inaad fahanto dhagaysiga inaad badiso aad bay muhiim u tahay waxaa laga yaabaa su-aalo badan ood adiga ka jawaabi lahayd inuu jawaabihiisa aad horeyba u heshidba waxaa laga yaabaa waxyaaba badan oo aad islaad ka qanci inuu qofkii inuu ka qanacsan yahay bay kusoo baxdo waxaa laga yaabaa waxyaaba badan ood islahayd muxuu ahay ama caqabad ka timaada inay iska fududaadaan marka dhagaysiga marka hore horumari dhagaysiga xooga saar markaad adiga si fiican u dhagaysato aad dhuucdo oo dadkii inaad dhagaysatay ay ku arkaan ay ku qancaan inaad ixtiraamtay kalsooni siisay ay ku arkaan kadib markaas kadib adina hadalkaadi isku day inaad qanciso dadka kale iyagana muhiim qodobkaas isagana sidoo kale waa muhiim qodobka lixaad oo aadka muhiimka waxaa weeyaan iskaashi in mar walba maskaxdaad aad caadaysatid iskaashi soomaalida waxay dhihi jirtay iskaashata ma kufto waxaa kaloo dhihi jirtay soomaalida far keliya foor ma dhaqdo jirkeenna wuxuu ka kooban yahay xubno kala duwan xubnahan xubin walbo ka mid ah xubinta kale ay u baahan tahay xubin walba xubinta kale ay dhamaystirtaa bini aadankan waa sidaas oo kale qofba qofka kale u dhamaystiraa marka inaan annaga aan iskaashi iyo wada shaqayn iyo muxuu ahaayey kala faa'iidaysi aan mar walba xooga saarno waxaan ku gaari karnaa guulo fara badan marka inaad caadaysato oo dhaqankaada aad ka mid dhigto inaad mar walbo cid walba oo tala kula wadaagto ama ma ahe wax ciidan ka dhexeeyaan iskaashi inaad u niyeysato runtii aaday muhiim u tahay kalsooni aad abuurtid niyad sami aad muujisid khaasatan dadka shaqaalaha maareeyo ama ma ahe mas-uulka oho dad ay hoos yimaadaan dadkaas aada ugu muhiimsan inaad dadkii aad iskaashi aad u muujisid kalsooni aad u muujisid wada shaqayn aad u muujisid niyad sami aad u muujisid waxay ku abuuri kartaa in badan inay kugu qancaan kugu kalsoonaadaan xataa talooyinka muhiimka ood u baahan tahay ay ku siin karaan haddii kale waxaa imaanayso inaad martaaglayn iyo awaamir bixin aad ku shaqaysid marka dambena wixii aad ku qasabto in ay sameeyaan talooyin badan oo muhiim ood ka faa'idi lahayd aad halkaas ku lumiso ayaa suurtagala qodobka ugu dambeeya ee 7 wuxuu leeyahay Stephen Covey waxaad si fiican u soo faysataa oo aad macnaha si fiican u hagaajisataa
minshaartaada. يعني markaad minshaartii caadiga ee wax lagu jari jiray haddaad soofayso wax badan bay ku jaraysaa. marka wuxuu leeyahay afayso ama soofayso minshaartaada. wuxuu ka keenay baa la yidhi qisaada ka hor dhacday nin geed jaray oo ku daalay baa nin kale u yimid. markaas wuxuu yidhi warniyahu maxaa samaynaysaa? markaasuu intuu ku xanaaqo wuxuu yidhi oo waxaan samaynaya waad u jeedaa maxaad ii weydiinaysaa? muddo intee dhan baad ku rafaadaysaa hawshan gacanta ku haysaa? wallaahi intaas baan shaqaynaya waa daalanahay weli waana jari la'ahay. markaasuu wuxuu ku yidhi warniyahu intaad fariisatid aad soofaysatid ama aad afaysatid minshaartaada oodna nasatid ma dib u bilowdid. marka qodobkaasoo kasoo qaatay baa la yidhi isagana tusaalahaan uu usoo qaadanaya runtii kitaabkiisa. marka wax walba waxaa ka muhiimsan 6 qodob aan soo bilownay oon soo sheegnay si aad ugu guulaysato waxaad u baahan tahay inaad naftaada horumarisid, inaad naftaada aad kobcisid aad u baahan tahay. bani aadamka markuu kobac sameynaya waxaa la yidhi wuxuu ka sameynayaa 4 shay ugu muhiimsan buu ka sameynaya. maskaxdii inuu kobciyo, maskaxdii aqoontii cilmiga inuu kobciyo, يعني akhrinta faraha badan dhageysiga faraha badan uu sameeyo ku kobciyo. waxa kale qofka kobcin kara baa leeyahay xiriiradiisa iyo dadka uu leeyahay bani aadamku uu leeyahay iyadana waa kobcinaya oo wuxuu kor u qaadaya asxaabtiisa iyo calaaqaadkiisa uu xoojinaya iyadana muhiim waaye. wanaaga iyo ihsaanka dadka uu sameeyo badinaya developmentgaas qayb weyn uu ka sameeynaya. sidoo kale qofkii caafimaadkiisa daryeelkiisu badinaya inuu macnaha caafimaadkiisa kor u qaado, caafimaadkiisa si fiican oo iskugu dayo inuu kor ugu qaado, wax caafimaad leh uu cuno, aalamiindadii uu sameeyo, haddii xanuun uu jiro iska daaweeyo, uu daryeelo jirkiisi naftiisa uu daryeelo. qodobka afraad oo isagana muhiimka ah qofka inuu horumariyo laga rabo waxa weeyaan cibaadaadkiisi, ruuxaaniyaadkiisi, ku xirinaantiisa ilaahay inuu kor u qaado. waayo waxa weeyaan maanta qofka bini aadamka ah jirkiisa wuxuu ka kooban yahay waxyaabaha maadigu cunaa, maadigaanu ku nool yahay raashinka caadiga bariiska baastada iyo cuntooyinkan cunayno kala duwanaa. laakiin ruuxda bini aadamka waxay u baahan tahay in ilaahay lagu xiro, calaaqaadka ilaahay lagu xoojiyo, cibaadada la badiyo, taqwada ilaahay la badiyo. marka inaad dhinacaasna iska dhistid. marka wuxuu leeyahay si ay himadaada kor ugu kacdo oo damacaada u xoogowo oo rajadaada kor ugu kacdo wanaagaagu u bato waxaad isku daydaa inaad 4taas shay aad si fiican u xoojisid oo aad kor u qaadid oo kobcisid. waxaan rajaynayaa 7daas qodob inaad ka bogateen insha Allah ta'ala. qof walba naga midaan waxaan rajaynayaa inuu naftiisa dib ugu laabto oo uu iska fiiriyo 7daas tilmaamood ma leedahay. haddii 7daas tilmaamood uu leeyahayna uu arko inay tahay wax guul ah oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala uu ku manaystay, Ilaahay u mahad celiyo. haddii 7daas tilmaamood uusan lahayna inuu dib ugu laabto oo uu dadaalo inuu 7daas tilmaamood naftiisa uu ku dabaqo oo inuu asaga iska helo isku dayo. waayo qofka bani aadamka ah mas'uuliyadiisa asaga iska leh, horumarinta naftiisa asaga iska leh, mustaqbalkiisa asaga iska leh. marka khabiirkan Stephen Covey runtii aadka dunida loogu yaqaano khibradaas faraha badan ee uu soo ururiyay meelaha kala duwan ka soo ururiyay oo noo soo koobay inaan anaga ka faa'iideysano insha Allah ta'ala. waxaan rajaynayaa inaad ka faa'iideen. aad iyo aad u mahadsantihiin. intaan xalaqo kale ku kulmi doono intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa. wassalaamu calaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.